daawadayaal caawa oo ay taariikhdu tahay May 17 2008 waa habeenimo Sabti ah magaaladu waa Toronto dalka Canada caawa waxaa loo dabaaldegayaa sanad guuradii 17aad ee dib u soo noqoshada xorriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland waa habeen taariikheed waa habeen mudan in lagu xasuusto dhibtii loo soo maray hayaankii dheeraa iyo halkankii kululaa ee loo huray naf iyo maalba si loo helo qaran buuxa 18 May waa maalin ka tarjumaysa jiritaanka ummadda dadka iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin calankoodii mar labaad ay taageen 1960 Juun ayaa waxaa loo aqoonsaday qaran buuxa Soomaaliland 4 maalmood kadibna Jarbaan laga tuuray qarannimadaas iyadoo lagu daray jamhuuriyaddii Soomaaliland haddaba iyadoo la dareemay isku darkii inuu keenay dhibkaasina waxa uu keenay cadaalad darro si kastaba ha u dhacday 1991 May ayaa dadka Soomaaliland ay si buuxda u go'aansadeen in qarannimadii ka luntay Soomaaliland mar labaad la dhiso dibna ay ula soo noqdaan dhammaan xorriyadoodii halkaas oo ka bilaabmay dhismo qaran haddaba iyadoo laga dabaaldegayo 18 May adduunka oo dhan ayaa waxaa caawa gaar ahaan magaalada Toronto ee dalka Canada ka dhacay xaflad si xeer qaran ah loo soo agaasimay oo aad indhihiina ku arki doontaan waxaana idin suurtageliyay cajiladan aad daawanaysaan shabakada wararka ee harwanaagnews.com ee daawasho wanaagsan daawadayaal